warar la helayo ayaa waxa ay sheegayaan inuu fashilmay kulan ay wada yeesheen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaare Xamza iyo sidoo kale taliyaha sirdoonka qaranka dowladda dalka Kenya kadib markii ergey uu u soo noqday madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe Kenya iyo sidoo kale Axmed Madoobe ayaa markii hore waxa ka wada hadleen suuragalnimada sidii guud ahaanba loo dhameyn lahaa badmadowga kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa la xaqiijiyay inuu ogolaaday in marka hore uu diyaar u noqdo in uu joojiyo guddiga doorashooyinka in shaqadooda si rasmi ah u bilaabaan Axmed Madoobe waxa uu shuruud ka dhigay in hadii wada hadal uu la galayo dowladda federaalka Soomaaliya iyaduna ay joojiso dhaqdhaqaaqa xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya arrimaha doorashooyinka ay joojiyaan kulankii hore waxa wada yeeshay taliyaha sirdoonka ee Kenya iyo sidoo kale Axmed Madoobe waxaana la isku raacay in arrinka la wada galo taas oo keentay in taliyaha sirdoonka dalka Kenya uu isaga la kulmo madaxda ugu sareysa dalka isla markaana uu kala hadlo sidii guud ahaanba arrinta loo dejin lahaa balse madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ra'iisul wasaare Xamza ayaa iyagu waxay ku adkaysteen in dalkan aysan suuragal ka ahayn in ay doorasho qof iyo cod waxaan ahayn ay ka dhacdo waxa loo sheegay taliyaha sirdoonka dalka Kenya in dowladda Soomaaliya iyadu ay maamusho maamul goboleedyada isla markaana dalkan waxa u wanaagsan ay taqaano taas oo loo sheegay taliyaha sirdoonka dalka Kenya in uu kula laabtay Axmed Madoobe isla markaana diyaar u noqdo inuu qabto doorasho qof iyo cod madaxdu waxa ay sheegeen in Axmed Madoobe haduu isku dayo in uu sameeyo doorasho isaga u gaar ah uu ka jawaabi doono wax walba oo ka yimaada isla markaana dowladda aysan aqoonsan doonin wax walba oo Kismaayo kadib ka yimaada taliyaha sirdoonka waxa uu sheegay madaxdii uu la kulmay in Axmed Madoobe isagu ay joojin doono guud ahaanba hanaanka doorashooyinka isla markaana diyaar u yahay markaan inuu wada hadal u galo Kenya ayaa iyadu markaan waxay ku dadaalaysaa in dhexdhexaadin rasmi ay ka samayso khilaafka soo kala dhaxgalay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kuwaas oo isku khilaafsan hanaanka doorashooyinka Xasan waxa uu rabaa in dalka doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo 2026 isla markaana maamulada loogu daro hal sano dheeriya Axmed Madoobe isagu waxa uu doonayaa dhinaciisa doorasho taa aan ahayn inuu qabsado oo uu ku laabto hanaankii hore oo xildhibaanada lagu keenay odayaasha dhaqanka waana laba jiho oo marka aad eegto aad u kala fog isla markaana ay adag tahay dhinacyadu isku soo dhawaadaan Madoobe markasta waxa uu rabaa in kursiga uu ku soo laabto halka Xasan Sheekhna uu markaan doonayo in Axmed Madoobe uu isdhaafiyo taas oo keentay in khilaafka uu sii xoogaysto balse markaan waxay u muuqanaysaa in dowladda dalka Kenya dhexdhexaadintan ay wado in dhinac ay u rido dowladda Soomaaliya waxa loo sheegay in iyaduna aysan tilaabo qaadin inta dhexdhexaadinta ay soconayso halka Axmed Madoobena loo sheegay inuu joojiyo guud ahaanba in kuraasta iyo sidoo kale boobka uu rabo halkaas uu qorsheynayo in meel uu iska dhigo inta xal laga gaarayo Kenya waxa ay sheegtay sirdoonkeeda marka ay ku guul dareysato markaasi cid walba iyada ay u taalo sidii ay sameeysan lahayd balse inta ka horeysa Axmed Madoobe balankii la soo galay waxa uu ahaa in wax dhaqdhaqaaqa uu san galin madaxweyne Xasan iyo sidoo kale Xamza ayaa iyagu waxay ku adkaysteen sidii guud ahaanba dalkan doorasho qof iyo cod looga qaban lahaa waxayna u muuqanaysaa marba hadii maamuladii kale ay raaceen sida Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Galmudugba inay noqonayso Axmed Madoobe kaligiis inuu meel istaago inay ku adkaanayso Kenya cadaadiska ugu badan ayay hadda saaraysaa Axmed Madoobe iyo sidoo kale in uu ka laabto doorashooyinka oo qorsheynayo waxaana la filayaa in Axmed Madoobe maalmaha soo aadan uu ka laabto qorshaha doorashooyinkiisa uu rabo in markale uu ku soo laabto daawade adiga siday kula tahay Axmed Madoobe ma ka tanasuli doonaa in markale kursiga uu ku soo laabto oo uu qabto doorasho isaga u madax bannaan mise waxa uu sameyn doonaa dowladda federaalka Soomaaliya ayuu raaci doonaa sida maamulada kale ay sameeyaan aragtidaada waa inoo muhiim barta hoose inoo reeb